ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa janalka dabagalka wararka waa 24 bisha Abriil sanadka 2020 qodobada ugu waaweyn warka janalka dabagalka wararka waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo faray xukuumadda inay kor u qaado tayada caafimaad ee xarumaha karantiilka madasha xisbiyada qaran oo war ka soo saartay heshiisyada siyaasadeed ee ka dhacay maamul goboleedyada madaxweyne Farmaajo waxa uu wada hadal xasaasi ah la yeeshay amiirka dalka Qatar iyo madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle faahfaahin ayaa ka soo baxaya weerar culus oo argagixisada shabaab ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha Braawe dowladda Soomaaliya oo ku goodisay in al-shabaab toddobaad gudihiis ay kaga saarayaan Shabeellaha Hoose waxaanu sidoo kale idiin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan muxuu dastuurka Soomaaliya ka qabaa xilalka ay fiqi iyo saabir ka qabteen maamulka Galmudug Faarax Macalin oo qeexid la yaab leh ka bixiyay heshiiska Axmed Madoobe uu la galay xidig iyo Seeraar iyo qaramada midoobe oo shaacisay qorshe 500 oo milyan loogu talagalay cudurka coronavirus ee saameeyay Soomaaliya intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay janalkan ku soo biir oo subscribe sarkana mid noqo saaxiibada joogto oo hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka share gare oo loo wadaag saaxiibada kuma hadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janalka dabagalka wararka haatana warkiyo fidsan madaxweyne Farmaajo ayaa faray xukuumadda inay kor u qaado tayada caafimaad ee xarumaha karantiilka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ka qayb galay kulan dhanka internetka guddiga qaran ee xakameynta COVID-19 ay ku yeesheen ayaa ka xog wareystay dadaalada lagu xakameynayo cudurkan caqabadaha iyo baahida caafimaad ee ka jirta dalka guddiga ayaa u soo bandhigay madaxweynaha xog ururin ay ka diyaariyeen goobaha karantiilka caafimaad taas oo ka muuqatay inay jirto baahi xoogan oo la xiriirta qalab caafimaad gaar ahaan neefsiyaha bukaanada waxaanu madaxweynuhu faray xukuumadda in si degdeg ah ay kaga howlgasho keenista qalabkani mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta xoogan ee ka dhaxaysa guddiga heer federaal ee xakameynta cudurka COVID-19 iyo guddiyada heer dowlad goboleed arrinkaas oo muujinaya siday u garowsan yihiin shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed halista caafimaad ee ku xeeran ay tahay in si wada jir iyo midnimo ay wajahaan madaxweynaha ayaa ugu baaqay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka in ay laabaan dadaalkooda ku aadan samata bixinta dalkeena isagoo bogaadiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre laamaha caafimaadka dalka iyo guddiga qaran ee xakameynta cudurka COVID-19 dadaalka muga weyn leh ay ku bixinayaan ilaalinta badqabka caafimaad ee shacabka Soomaaliyeed ugu dambeyn Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ku amaanay dadaalada bulshada rayidka ganacsatada Soomaaliyeed ay ka geysanayaan ka hortagga cudurkan iyagoo kaalin mug leh ka qaadanaya wacyigelinta iyo garab istaaga bahda caafimaadka dalka dhinaca kalena madasha xisbiyada qaran ayaa war ka soo saartay heshiisyada siyaasadeed ee ka dhacay maamul goboleedyada madasha xisbiyada qaran ayaa soo dhaweysay heshiisyada siyaasadeed ee ka dhacay maamul goboleedyada Galmudug iyo Jubbaland iyagoo ugu baaqay dowladda federaalka inay ku dayato maamuladaas lana heshiiso maamul goboleedyada dalka war saxaafadeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa loogu hambaliyay heshiisyada siyaasadeed ay gaareen madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo lagu soo afmeeray khilaafka ka dhashay doorashadii ka dhacday Dhuusamareeb bishii Febraayo 2020 sidoo kale madashu waxay soo dhaweysay heshiiskii shalay ay ku gaareen magaalada Nairobi madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe iyo xubnaha golaha isbedel doonka kaasoo lagu soo gabagabeeyay khilaafkii ragaadiyay doorashadii Jubbaland ka dhacday Agoosto 2019 madasha ayaa ugu baaqday dowladda federaalka inay ku dayato dadaalada heshiisiinta siyaasadeed ee ka socda dalka lana heshiiso dowlad goboleedyada janalka dabagalka wararka ee nagala socotaan saaxiibayaal waxaan haatan idinku wareejinayaa waryaheena magaalada Muqdisho oo noo sii anbaqaadaya faahfaahinta wararkeena kale aad baad u mahadsan tahay ramadaan mubaarak daawadayaal halkan waa janalka dabagalka wararka haatanna markaanu sii anbaqaadno qodobada warka janalkana madaxweyne Farmaajo ayaa wada hadalay la yeeshay amiirka dalka Qatar iyo madaxweynaha wadanka Djibouti
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wadahadal taleefon ah la yeeshay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar gele iyo amiirka dalka qatar tamiim bin xamed al thani sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay villa soomaaliya madaxweyne farmaajo iyo geele ayaa iska xog wareystay hanaanka iskaashiga labada dal iyo wadahadalada ay ku wajahayaan xakameynta iyo kahortaga cudurka covid-19 oo ah aafo caalamiya villa soomaaliya ayaana sheegtay in madaxweyne farmaajo uu la wadaagay dhiigiisa dalka jabuuti in shacabka iyo dowlada soomaaliyeed ay la dareemayaan walaalahooda jabuuti murugada iyo dhibaatada ka dhalatay daadadka ku fatahay dalkaasi oo sababay khasaaro naf iyo maalba leh dhanka kale madaxweyne ismaaciil cumar geele ayaa ugu hambalyeeyay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dowladda iyo shacabka soomaaliyeed bilashada bisha barakaysan ee ramadaan waxa uuna alla uga rajeeyay nabad iyo barwaaqo waarta sida lagu sheegay qoraalka villa soomaaliya madaxweyne farmaajo oo sidoo kale khadka taleefanka ay ku wada xiriireen amiirka dalka qatar tamiim bin xamed al thani ayaa waxa ay ka wada hadleen horumarinta iskaashiga iyo xiriirka labada dal gaar ahaan dadaalada caalamiga ah ee lagu wajahayo xakameynta iyo ka hortaga cudurka covid-19 madaxweyne farmaajo ayaana xusay muhiimada ay leedahay mideynta dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka cudurka safmarka ah isagoona soo bandhigay mudnaanta ay leedahay in la xoojiyo iskaashiga ku aadan iswidaarsiga khibradaha iyadoo gacan lagu siinayo dowlada federaalk soomaaliya tayeenta laamaha daryeelka caafimaad oo dagaal xoogan kula jira cudurka covid-19 geesta kalena al-shabaab waxa ay weerar culus ku qaadeen garoonka diyaaradaha baraawe faahfaahina ayaa ka soo baxaya weerar laba qarax ahaa oo ay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada Uganda ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose wararka la helayo ayaa waxay sheegayaan in gawaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa lala beegsaday saldhig weyn ee ciidanka AMISOM ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada Baraawe isla markaasna qaraxyada kadib la maqlay rasaas aad u xogan gudoomiyaha degmada Baraawe Umar Sheekh Cabdi ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ee rasaasayeen gaadiidkii ku xirnaa qaraxyada isla markaasna midkood uu ku qarxay afafka hore halka kan kalena meel aan sidaasi uga fogeen garoonka diyaaradaha uu ku qarxay sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in burbur xoogan uu soo gaaray garoonka diyaaradaha magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose dadka degmada Baraawe qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in ay maqleen dhawaaqa qaraxyada hase yeeshee aysan cadeyn karin khasaaraha ka dhashay waxaana degan xaaladda magaalada maadaama saldhig uu ku yaalo banaanka degmada Baraawe al-shabaab ayaana sheegtay mas'uuliyadda qaraxyadaasi waxaana baraha wararkooda ay ku faafiyaan lagu sheegay in laba gaari oo laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa ay ku weerareen xeerada isla markaasna ay khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawac gaarsiiyeen ciidanka Uganda ee ka tirsan howlgalka AMISOM ma jiraan weli wax war ah oo ka soo baxay taliska AMISOM ee ku aadan weerarkan al-shabaab ee ku qaadeen saldhigga ciidamada AMISOM ee ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada Baraawe dhanka kale gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa ka hadlay labada qarax ee ismidaaminta ahaa ee xubno ka tirsan al-shabaab ku weerareen saldhigga ciidamo ka tirsan AMISOM ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada Baraawe gudoomiye Najax ayaa waxa uu sheegay in xubno ka tirsan al-shabaab oo watay laba gawaari oo laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa ay isku dayeen in ay galaan garoonka diyaaradaha Baraawe balse laga hortagay waxa uuna sheegay in ay ku dhinteen xubnihii waday gawaarida naftooda haligayaal watay laba gawaari oo waxyaabaha qarxa ay ku raran yihiin ayaa isku dayay in ay gudaha u soo galaan garoonka diyaaradaha Baraawe marka laga soo tago in iyaga ay ku dhinteen ma jirto khasaare kale oo ka dhashay qaraxaasi ayuu yiri gudoomiye Najax waxa uuna hadalkiisa intaasi ku daray in ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee gacanta ku hayo garoonka ay yihiin kuwa u dhiiran ka hortaga in ay al-shabaab gudaha u galaan garoonkaasi dhinaca kalena taliya Cabdixamiid ayaa waxa uu sheegay in ay shabaab toddobaad gudihiisa uga saarayaan gobolka Shabeellada Hoose taliyaha ciidamada dhulka ee xooga dalka Soomaaliyeed Generaal Cabdixamiid Maxamed Adirir ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallo maalmihii la soo dhaafay ee ciidamada ay ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose taliyaha ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ay guula ka gaareen howlgalladii ugu dambeeyay ee ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolkaasi isla markaasna ay khasaaro al-shabaab ku gaarsiiyeen waa sidoo hadalku u dhigay saraakiisha kale iyo ciidamada dowladda ee howlgalka waday ayuu taliyaha ugu baaqay in ay kordhiyaan isagoona sheegay in
muddo 7 ah ay al-shabaab uga saari doonaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellada hoose. ciidanka dowladda ayaa bilihii ugu dambeeyey waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan, waxaana taliska ciidamada xooga dalka ay maalin ka hor sheegeen in ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanada Gandarshe, Jilimarka iyo deegaano kale. halkaad weli daawadeen nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka ee muxuu dastuurka ka qabaa xilalka ay Fiqi iyo Saabir ka qabteen Galmudug ma weyn doonaan xildhibaanimada federaalka. liiska golaha wasiirada Galmudug oo uu magacaabay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxaa ka soo muuqday xildhibaano caan ah isla markaasna miisaan culus oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka. xildhibaanadaas ayaa waxaa ka mid ah Axmed Macalin Fiqi oo loo magacaabay wasiirka amniga Galmudug iyo xildhibaan Saabir Nuur Shuuriye oo loo magacaabay wasiirka dekedaha iyo kalluumeysiga Galmudug. arrintan ayaa lama filaan iyo yaab ku naqatay dad badan oo isweydiiya haddii ay sidan kulmi xubinnimadooda baarlamaanka federaalka ama ayaga goosteen in ay ka tagaan. si kastaba dib u eegis ay dabagalka wararka ku samaysay dastuurka federaalka ayaa muujinaya in labadan xildhibaan aysan kala cadeen in ay xilalkooda federaalka weyn doonaan iyo in kale, iyadoo ay sababtuna tahay in dastuurku uusan si cad u qeexinin arrinkan. qodobka 59 ee dastuurka ayaa qeexaya 6 sabab oo lagu lumin karo xubinnimada baarlamaanka federaalka oo u dhigan sidan: 1. xubinnimada baarlamaanka federaalka waxaa lagu lumin karaa xubinta oo geeriyoota, b. xubinta oo lasoo gudboonaata xaalad xilgudasho la-aaneed oo joogto ah, c. xubinta oo istiqaalad u gudbisa aqalka ay xubinta ka tahay lagana ogolaado, d. ka maqnaasho 2 kalfadhi oo caadi ah iskuna xiga iyada oo aan jirin sabab maangal ah, e. haddii ay xubinta aqbasho xil dowladeed aan wasiirka ahayn, f. haddii la hakiyo xuquuqdiisa muwaadinimo sida ku cad sharciga. haddaba sida ka muuqato qodobada kore, qodobka ugu dhow ee ay ku weyn karaan xubinnimada golaha shacabka ayaa ah kaasi oo dhigaya haddii ay xubintu aqbasho xil dowladeed aan wasiirka ahayn. si kastaba dastuurku ma kala cadeen in wasiirnimadu ay tahay mid federaal ama mid heer gobol, inkastoo loo fahmi karo in loola jeedo mid heer federaal. haddaba sharciga laguma dabaqi karo fahamka qofka qaadan karo haddii aanun cadeen. sidaas daraaddeed waxaa adkaan doonto in Fiqi iyo Saabir ay waayaan xubinnimada baarlamaanka maadaama xilkan uu yahay mid wasiir, mana cadda cidda arrinkan kala cadeyn doonto ama halka loo mari doono. faarax macalinna waxa uu qeexid la yaab leh ka bixiyey heshiis uu Axmed Madoobe la galay Xidig iyo Seeraar. siyaasiga faarax macalin ayaa qeexid yaab leh ka bixiyey heshiis ay magaalada Nairobi ku gaareen madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo mucaaradka isbedel doonka Jubbaland ee ka soo horjeeda oo ay ku jiraan Seeraar iyo Xidig. faarax macalin ayaa heshiiskaasi ku qeexay in uu la macno yahay ajaanib heshiis ku kala saxiixday dal ay shisheeye ku yihiin, isagoo oo sheegay in kuwa heshiiska galay aysan dhammaantooda ka soo jeedin Jubbaland sida uu hadalka u dhigay. cid ka mid ah 4 saxiixayaal sharciyad uma haystaan Jubbaland, dhammaantooda waxa ay ka yimaadeen gobolka Soomaalida Itoobiya. kaliya dadka u dhashay deegaanada Jubbaland ayaa go'aan ka gaari kara mustaqbalka gobolka. waa ajaanib heshiis ku kala saxiixday dal ay shisheeye ku yihiin marka ay quseyso madax banaanida hay-ad, ayuu yiri faarax macalin. faarax macalin oo ay isku beel yihiin xubnaha heshiiska saxiixday ayaa marar badan dhaliilay maamulka Axmed Madoobe iyadoo la rumaysan yahay in ay aad iskugu dhow yihiin dowladda federaalka gaar ahaan Villa Soomaaliya. waxa uu hore ula saftay dowladda federaalka markii ciidamada qaranka iyo kuwa wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ay ku dagaalameen beled Xaawo, isagoo Janan ku tilmaamay hogaamiye kooxeed oo ay dowladda Kenya hubeenayso. Kenya waxa ay hubeenaysaa hogaamiye kooxeed baxsad ah, kadibna waxa ay hogaamiye kooxeedkaasi u ogolaanaysaa in uu gudaha dalka Kenya ka soo weeraro Soomaaliya isaga oo ku gambanaya hoobiyaasha Kenya. markii ay ciidamada qaranka isdifaacaan oo ay rasaas ugu jawaabaan, Uhuru waxa uu ku cabanayaa in Soomaaliya ay soo weerartay dhulka Kenya. allahna badbaadiyo, ayuu yiri gabagabadii faarax macalin. ugu dambeyntiina qaramada midoobe ayaa waxa ay shaacisay qorshe 500 oo milyan ah oo loogu talagalay COVID-19 ee Soomaaliya.
qaramada midoobay ayaa shaacisay qorshe raadinaya 500 milyan oo dollar ah oo loogu diyaar garoobayo ka hortagga cudurka coronavirus ee Soomaaliya iyo saameynta bini'aadanimo iyo mid dhaqan dhaqaale ee uu keenay sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. war-saxaafadeedka qaramada midoobay ayaa ugu horeyn lagu yiri qorshaha u diyaar garowga iyo ka falcelinta COVID-19 ee Soomaaliya. maanta qaramada midoobay iyo saaxiibadeeda kale waxa ay daahroogeen qorshaha u diyaar garowga iyo ka falcelinta COVID-19 ee Soomaaliya si loola tacaalo saameynta bini'aadanimo iyo mid dhaqan dhaqaale oo uu keenay xanuunka coronavirus. saameynta coronavirus waa mid aad u daran ayuu yiri Master Aadan Abdulmaluu ku-xigeenka wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ahna isku duwaha arrimaha bini'aadanimada ee Soomaaliya. ahamiyadda koobaad waxa ay tahay in laga taxadaro in xanuunkan uu u faafo si xad dhaaf ah iyadoo la marayo in khatarta cudurkani leeyahay dadka loo sheego dadkana laga baaro xanuunkan iyo waliba in dabagal lagu sameeyo dadka la macaamilay qof xanuunkan lagu arkay. ilaa iyo markii ay Soomaaliya xaqiijisay xaaladii ugu horeysay ee coronavirus 16 Maarso kiisaska waxa ay noqdeen kuwa iska soo daba dhacaya eerkana isku sii shareeraya ilaa ay gaareen 286 xaaladood 22 Abriil. dadka xanuunkani soorita ayaa waxaa ka mid ah 15 howlwadeena caafimaad ah. muddadan cudurkan safmarka ahna waxa uu saameeyay dhaqaalaha iyo habnololeedka waxaana hoos u dhacay badeecadihii dibadda laga keeni jiray. maciishada ayaana sare u kacday. lacagihii Soomaaliya loo soo diri jiray hoos ayay u dhaceen. xirnaanshaha dugsiyada ayaana saameyn ku yeeshay ku dhowaad 1 milyan oo caruur ah. qorshahan oo loogu talagalay in lagu howlgalo ilaa 6 ilaa 9 bilood waxa uu fududeynayaa hay'adaha samafalka iyo kuwa horumarinta ah in ay dib u eegaan mashaariicdooda lana jaan qaadaan xaaladahan isdabayaala iyo waliba in ay sare u qaadaan howlahan ay hayaan si loo yareeyo saameynta xanuunka COVID-19. ujeedadu waa in ay isdhamaystiraan gargaarka safmarka ah, mashaariicda horumarinta ah iyo dhismaha nabadda. qorshahan fulintiisa waxa uu dhamaystirayaa qorshaha dowladda federaalka ee Soomaaliya uga jawaabayso faafitaanka xanuunka coronavirus. waxaan si dhow ula shaqeyn doonaa dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo saaxiibada kale si mashaakilkan aan hore loo arkin loola tacaalo ayuu yiri Master Abdulmaluu. waxa uuna ugu yeeray deeq-bixiyaasha inay taageeraan qorshahan soonada dejiyaan kaalmadooda si hay'adaha samafalka ay ugu suura gasho in ay sare u qaadaan gurmadka ku aadan xanuunka COVID-19. qorshaha CBRB waxa uu raadinayaa adduun lacageed oo gaaraya 500 milyan oo dollarka Mareykanka wuxuuna muhiimad siinayaa dadka aadka u nugul oo ay ku jiraan 2.6 milyan oo qof oo ku barakacsan gudaha wadanka kuwaasi oo ku nool xirooyin ama kaamam isku raran ah oo gaaraya 2,000 oo kaamam ah oo ay adag tahay inay helaan adeegyada aasaasiga ah ee caafimaadka iyo fayadhowrka. qorshahana waxa uu sidoo kale tixgelin siinayaa dadka da'da ah oo ku dhowaad 2.7% ka ah dadka Soomaaliyeed iyo dadka saboolka ah oo ku nool magaalooyinka kuwaasi oo saameynta ugu xun uu ku yeelan karo xanuunka coronavirus. safmareyka coronavirus waxa uu ku soo aaday xilli Soomaaliya ee la tacaalaysay mashaqooyinka bini'aadanimo oo ay daba dheeraatay oo ay sababeen sanado badan oo colaadeed ah, isbedelo dhanka cimilada ah iyo faqri aad u baahay. gabagabadiina waxaa lagu yiri sanadkan waxa xaaladda uga sii dartay cudurro, fatahaado la saadaalinayo iyo waliba anyax ku habsaday dhul beereed aad u ballaaran. guud ahaan daawadayaal wanaagta warkii aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka fadlan haddii aan ugu cusubtaan ugu soo biro subscribe saar janaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada oo ila wararka 24 gazacan halkan ku baahino aragtidaada halka hoose noogu reeb muuqaalka share gare waana ku maasantahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka waxaanu idin leenahay dhammaanteena Ramadaan Mubaarak.